Assalaamu calaykum soo dhawaada dhammaan asxaabta meel waliba dunida ku joogtaan. Magacaygu waa Maxamuud, YouTube channelkeygana waa Engineer Maxamuud Xasan. Insha Allah waxaa inoo socda cashiradeeni taxanaha ahaa kuna saabsan applicationka loo yaqaana Pixel Lab. Cashirkii ku horeeyay waxaan soo geliyay sida loo nashqadeeyo ama designka marka loogada Apple. Haddana waxaan soo geli doonaa insha Allah qaabka markaasi loo design gareeyo ama loo sameeyo loogada Adidas oo inta badan aad wada taqaanaan dharka iyo kabaha inta badan aad ku wada aragteen. Applicationka ayaan soo furayaa oo Pixel Lab ayaan soo furayaa. Loogada Adidas waatan oo caadiyan ah halka waata. Hadda waxaan rabaa markaa inaan sameeyo loogadan oo kale inaan sameeyo ayaan rabaa designka noocan inaan sameeyo ayaan u baahanahay. Tan si aan halkan kaga saaro halka ayaan ku dhufanayaa tigta saarayaa. Halka ayaan tigta saarayaa. Kadib waxaan sameynayaa halka ayaan hide ku sameynayaa oo waan qarinayaa. Halka ayaan ku dhufanayaa kadibna halka ayaan guujinayaa ayaan tigta saarayaa. Kelig ayaan leeyahay. Halkan waad u jeedaan background banaan ayaa yaalo oo hadda wax sawir ma saarno. Kaliya hadda waxaan u baahanahay designka inaan bilaabo loogada markaa Adidas hadda inaan nashqadeeyo ayaan u baahanahay. Marka hore waxaan markaa tagayaa halka hadda way dooran tahay oo kaliya qaybaan hadda uma baahni. Waxaan tagayaa halka ayaa tagayaa sare qaybta sare calaamada wadarta ayaan ku dhufanayaa. Halka ayaan guujinayaa kadibna waxaan kasii dooranayaa shapes halka ay ku qoran tahay. Shapes ayaan dooranayaa. Shape-ka waa kan midkaan hadda ii furan oo kaliya ayaan u baahanahay. Halka ayaan markaasi guujinayaa. Halka ayaan ku dhufanayaa. Waxaan rabaa markaa designkii inaan sameeyo. Halkan kornayaashan sidaad u jeedaan kan waa markaa rabto inaad dhanka markaa u sikiso. Kan waa markaa rabto inaad soo yara weyneyso. Kanna waa markaa rabto inaad hoos u soo jiido. Kanna markaa rabto inaad wareejiso ayaa loo adeegsadaa. Aniga hadda waan halkan ayaan u jiidayaa oo sida ayaan ka dhigayaa kana sare u qaad. Sida ayaan ka dhigayaa. Sida markaan ka dhigo halka ayaan kasoo yareynayaa oo sida ayaan u yareynayaa sidaad u jeediin. Halka ayaan qabanayaa kor ayaan u yareynayaa. Waa kaas sidaad u jeediin halka ayaan dhigayaa markaa oo halka ayaan dhigayaa. Sidaad u jeediin waa kaas qaybta hore ayaan sameeyay. Waxaan u baahanahay haddana laba kale ayaan u baahanahay oo isla sidaan ah. Shape-ka kuma laabanayo ee kaliya waxaan sameynayaa waa copy gareynaya oo kaliya copy ayaan ku dhufanayaa. Copy ayaan leeyahay. Kan kale waan soo qaadayaa isagana. Waan garab dhigayaa oo sida ayaan u garab dhigayaa insha Allah. Waa kaas waa garab dhigay. Haddana waxaan u baahanahay mid saddexaad ayaan u baahanahay. Shape-ka waa kana laakiin ma raba hadda inaan doorto shape-ka oo kaliya waxaan u baahanahay kaliya inaan copy ka qaato ayaan u baahanahay. Waan tiggareynayaa oo kaliya. Haddii aad tiggareyso waxa kuu soo bixi doona toolisyo badan. Haddii aad laakiin aad unselect dhahdo ma arki doonteed sida aan ku soo aragnay cashirkii hore. Waa ka hadda tig ma saarno oo had shape-kaas ma noo select gareysno. Haddii aan select dhaho waa ka waxaad arki karaysaan toolisyadaas ayaa soo muuqanaya. Haddii aan tigta ka qaadane ma arkina waa ka halka wax dhaqaaq ay sameynayso ma jirto. Marka sida ayaan tigta u saarayaa tig ayaan leeyahay tigta ayaan saarayaa waan select gareynayaa ninis. Markaan select gareeyo copy ayaan ka qaadayaa halka ayaan ku dhufanayaa. Halka ayaan guujinayaa. Waan soo qaadayaa iyadna si la mid ah. Soo qaadayaa. Iyadna waan sii garab dhigayaa halka ayaan dhigayaa iyadna. Oo waa kaas sidaas ayaan u kala yara sareysiinayaa. Sida markii tahay waxaan rabaa dhammaan shape-yadan waa 3 shape. Waxaan rabaa inaan ka soo saaro hal shape oo isku mid ah oo hal dhinac loo dhaqaajin karo. Si aan iskugu merge gareeyo ama aan iskugu furo waxaan guujinayaa halka ayaan ku dhufanayaa. Halka ayaan guujinayaa kadibna waxaan tagayaa halka ayaan dooranayaa. Halka ayaan ku dhufanayaa. Halka markaan ku dhufto inta aan rabo inaan isku merge gareeyo waa 3da ayaan u baahanahay inaan isku merge gareeyo. 3da tigta ayaan wada saarayaa. Waa ka tigta markaan wada saaro si aan hal shape ugu dhigo halka ayaan guujinayaa. Halka ayaan dooranayaa. Halka ayaan ku dhufanayaa kadibna waxaan leeyahay okay.
okay ayaan leeyahay. Halka calaamada saxda ayaan sii saarayaa. waa ka sida u jeedin hal shape ay noqdeen sida u jeedin halka kadib si aan kaga laabto toolbarkan halka ayaan ku dhufanayaa. waa ka sida u jeedin waxay noqdeen kuwa markaa isku mid ah oo hal mar ayaan wada siki karaa sida u jeedin hore laakiin mid kasta markaa goonigii ayuu ahaa midba meel ayuu taagnaa. si aan u sameeyo markaa design-ka aan rabo xoogaa markaa waxaan ku sameynayaa halka ayaan koornaa ayaan qabanayaa oo sidaa ayaan ka yara dhigayaa sidaa ayaan ka dhigayaa. kadib inta ayaan usoo yara sikinayaa sida markaan usoo yara sikiyo waxaan markaa haddana u baahanahay shape ayaan u baahanahay shape-ka halka ayaan ka dooranayaa oo halka ayaan ku wujin doonaa. waa ka halka shape-ka hadda ii saaran ayaan u baahanahay isaga ayaan tiggaraynayaa oo halka ayaan ku dhufanayaa tigta halka ayaan saarayaa waan tiggarayay sidaad u jeedaan. shape-kii hore saddexda xabba ayaa waxaan ku sameynayaa kalarka ayaan ka bedelayaa. si aan kalarka ugu bedelo waxaan tagayaa halka kalarka ay ku qoran tahay ayaan ku dhufanayaa. halka markaan ku dhufto waxaan furayaa isha ayaan furayaa oo waa ka midabka markaa automatically soo fuulay wuxuu noqonayaa guduud. laakiin hadda tusaale aniga guduud uma baahni waxaan u baahanahay midab kale qaybta ayaan yaro kor u sikinayaa kadibna midabada halka ayaad kasii dooran kartaa. aniga waxaan u baahanahay tusaale midabkan oo kale ayaan u baahanahay ka oo kale ayaan u baahanahay halka ka ayaan u baahanahay. kadib halka ayaan tiggaraynayaa halka ayaan ku dhufanayaa kadib shape-kan ayaan soo qaadayaa waxaan rabaa inaan erase ku sameeyo aan isku jaro halka ayaan dhigayaa isagana oo sidaa ayaan u yara weyneynayaa. sidaa markaan iskugu furo kadib waxaan sameynayaa waan isku xirayaa kuwan halkan ku qoran ayaan kuwan labada shape ayaan waxaan isku sameynayaa isku merge gareynayaa. si aan iskugu merge gareeyo halka ayaan ku dhufanayaa halka markaan ku dhufto kadib waxaan dooran doonaa halka ayaan dooranayaa si aan iskugu merge gareeyo halka soo saaro. halka ayaa markaan tigta saarayaa labada shape ayaan dooran doonaa kan kuwa tigta saarka labaadna tigta ayaan saarayaa kadib si aan iskugu merge gareeyo halka ayaan dooranayaa one shape inaan ka dhigo markaan u baahanahay. waa ka kadib waxaan leeyahay okay you sure ma hubta ku leeyahay you want inaad rabto to merge inaad isku furto select object shayada aan doortay okay ayaan leeyahay. waa ka waan isku merge gareey sidaad u jeedin daawadayaal. waa ka halka ayaan tigta saarayaa tigta markaan saaro si aan kaga laabto toolbarkani halka ayaan guujinayaa kadib waxaan dooran doonaa qaybta erase color ayaan dooran doonaa oo midabada ayaan isku jarayaa kadibna erase color halka ay ku qoran tahay waa kan oo waxaa masaxmi doona kalarka cadaanka ayaa masaxmi doona insha Allah. halka erase color ayaan ku dhufanayaa kadibna waxaan markaasi aan u baahanahay inaan isha furo. haddii aan isha furo oo kalarka cadaanka ayaa masaxmi doona insha Allah. waa kaas sidaad u jeedin waxaa masaxmay midabkii markaa cadaanka ahaa kaliya waan tiggaraynayaa oo sida ayaan u tiggaraynayaa. markaan tiggareeyo hadda waxaan u baahanahay background colorka inaan bedelo midabka hadda halkaan saaran ayaan bedelayaa oo haddii aan u baahanahay tusaale oo kale midkaan markaan sidaa u taabto kale dhaqdhaqaaq ayuu sameynayaa. haddii aan u baahanahay inuu dhaqdhaqaaq sameynin waxaan dooran doonaa halka ayaan dooranayaa halka ayaan guujinayaa kadibna qufilkaas ayaan ku dhufanayaa. qufilka haddii aan taabto halka ayaan kaga laabanayaa. waad u jeedin daawada halka haddii aan dhaqdhaqaajiyo wax dhaqdhaqaaqaya ma lahan oo sidaa ayuu ahaanayaa. hadda waxaan u baahanahay inaan bedelo background colorkan inaan bedelo ayaan rabaa. background colorka markaan rabo inaan bedelo halka ayaan tigta saarayaa halka ayaan dooranayaa kadibna color ayaan kasii dooranayaa. midabadan qaybta waxaan dooranayaa colorka ayaan dooranayaa halka ayaan usii yara riixayaa oo midabka ayaan dooranayaa sidaad u jeedin kadibna halka ayaan tigta saarayaa. sidaa markaan u tiggareeyo waxaan sameynayaa waxaan kusoo darayaa magaca markaasi Adidas ayaan kusoo darayaa halka ayaan textiga ayaan kusii dhufanaya halka ayaan imaanayaa kadib si aan text ugu soo daro
eedaas waa guujin karaa oo halkaa edit ay ku qoran tahayna ku dhufanayaa. kadib waxaan ka saarayaa textkaas ayaan halkaa ka saarayaa, kadibna waxaan ku qorayaa Adidas. halkaa ayaan ku dhufanayaa, kadibna waxaan leeyahay okay ayaan dooran doonaa. kadibna sidaa ayaan usoo yara weyneynayaa, sidaa ayaan u yara weyneyn karaa. tusaale waakaa sidaa markaan u yara weyneeyo kadib waxaan dooran doonaa halkaa fontiga ayaan bedelayaa, nooca farta ayaan bedelayaa ilaa iyo halka aan kasoo gaaro AB halka ay ku qoran tahay waa kaasa font. halka ayaan guujinayaa. kadib waxaan dooran doonaa midkaas polliga ah ayaan dooran doonaa, waa kan ugu fiican. halkaa ayaan ku dhufanayaa oo waa halkaa markaa waxaa ka muuqday ama kasoo muuqanaya sidaad ujeediin loogada Adidas. waa kaas applicationkani waa application markaa aad powerful u ah, aadna ku qabsan karta shaqooyinkii aad u isticmaali lahayd photoshopka, weliba si fudud mobilekaaga ayaad u isticmaali kartaa. tusaale haddii aad rabto inaad save gareyso halkaa ayaad ka save gareyn kartaa, halkaa ayaad ka save gareyn kartaa. haddii aad rabto sida image oo kale in lagaaga dhigo oo lagu soo diro qaybta sawirada ama galeriga, halkaa ayaad ka save gareyn doontaa. haddii aad rabto inaad project ahaan u isticmaashana, projectigo kale wuxuu kaa caawinayaa sawirka inaad dib aad ugu sii hesho qaybta markaa projectiga inaad wax ka bedesho ayuu kuu suurtagelinayaa. waa ka halkaa ayaan dooranayaa aniga oo save as project oo kale aan dooranayaa. kadibna waxaan ku qorayaa halkaa Adidas ayaan ku qorayaa Adidas. waa kaas waan save gareeyey oo halkaa haddii aan ka laabto, halkaa haddii aan tago qaybtaas haddii aan soo furo my project haddii aan soo furo dib ayaan ugu heli karaa. waa ka projectiga waa ka halkaa ayaan kasoo furi karaa. Are you sure you want to open inaad markaa furto your project? hadda aniga uma baani cancel ayaan leeyahay. waa kaasa soo dhawaada dhammaan asxaabta. haddii muuqaalkan kusoo gaaray subscribe insha Allah muuqaalkan muuqaal xigo oo xiiso leh insha Allah. soo dhawaada. assalaamu calaykum.